qisadii kugu la yaab badneed inta wiil la hasaawisi ka soo marta hadii jirto way jirtaa walaalo wiilashan la hasaawi jiray adigu qisadii koobaad iga soo martay in kaas jeclaana bay ahayd inaan ka hadee inuu sugu jeclaa garamay laakiin aanu jecelsayada baan hayso maaha sax marka wuxuu keenay inuu waji wanaagsan ay gula socdo laakiin oo khiyaano ku daro muddo dheer adigu wada sheekaysanay uu soo gaabiyo wuxuu guri inaan isguursanaan doonayaa marka adigu lacag xogaayana waan haystay isaguna laakiin wax hantiya fara ku misanaynin qof aad jeceshahay inaad iska garanayso dareemaysaa samaha kadib waxaan siriiday adigu wixii gala hadlay waxyaabo aanu waxna haleeli karo waxna uuna haleeli karin kadib waxaan ku yiri wixii ka dhiman anaa kugu daraya sidii macna aan isku guursanayn guurkana oo qaban qaabinayna dalug baan ku yeelanayaa waayahay biigu maxaad lacag haysaa akoonkaaga ku jirta 1500 baa ku jira baan ku yiri marka wuxuu igu yiri lacagtaan waxaan doonayaa inaad aniga igu soo wareejiso ninkii hawsha qaban qaabin lahaa diyaarin lahaa aniga waa ku wareejiyay wuxuu keenay markan lacagta ku wareejiyay inuu lambarka xidho marka 1500 meherka ha macna iga bixi biigu maadaama aan jecelahay aniguna aan hanti fara ku hayna jecelkana waa balaayade si saydan aniguna jecelahay lacagta waan siiyay waan ku aaminay dumarkuna inta badan rag way aaminaa Soomaha aniguna ka sii xaq jiro indhahay aan ka jecelahay waan siiyay lacagta hore uga shubay kadib wuxuu keenay inuu lacagtii markuu gacanta ku hubsaday inuu lambarka xidho lambarka markuu xidhay buu hadana fiidkii furay musiiguuri gabadh walaashay yar xanuunsan dhakhtarka u qaaday biri waan soo wada hadlaynaa haye baan ku yiraahdaa lambarkii wuu iska bedelayba kaarkii wuu banaday kadibna sidaan inanka isku weynay magaaladaas iska dhex galay aniguna lambarkiisa waan waayay asaguna way ila dhuumaaleystay maalintii may cid asxaab macna ay saaxiibiyiin hal wiil baan aqaan wiilkan Hargeysa ku maqnaa waxa jirtay maalin aan xaflad ku socda aan arkay isagoo gaari saaran kadibna markaan gaariga arkay isagoo saaran baan siri xaqiisa soo aad muraayadu u dalacday toos buu dhaqaaqay kadibna gaari sayna buu hayaa baabuurtu wiiga dhex galay waxaan ka garan waayay marka waayahayga laabtan iskaga haystay salaajiga inankii waxaan aaminsanaaday inuu yahay khaayin aniguna saasan kaga jaray qalbigayga waan iska ilaaway lacagteedana waxaan sariifka kaliya xalma cunaa aakhiraba u deyso way wiilkii dib ma aragtay wiilkii adigu dhowr jeer waan arkay laakiin inankii wuxuu keenay inuu xitaa wiihan jabay wuxuu igu mararka qaar hadan aad farayga soo gashid anigu waan bareen kara ayadii saqanaa deedoon isbaran hadana kala wad biigu yiri maalmaha kamid san saga ilaalin jiray macna inaan dambe inaan jeclaado amaan aamino inankaas igu horeeyay wax dambana adigu anaaba khiyaano la noqdayo inama inta jacaylku abuur kaga bixi jiray dambo la igu abuur la iga baxsama